بسم الله الرحمن الرحيم marka hore dhamaan umada Soomaaliyeed waan salaamayaa bacda salaam waxaan rabaa inaan soo qaato ninkan halkan ka muuqdo waxa la yiraahdaa Cabdi Madoobe waa taliyaha howlgelinta booliska ee Kismaayo qaybteeda xarunta qaybta ninkan waxa la yiraahdaa Dhuxlow waa taliyihii hore ee airportka magaalada Kismaayo haddana ah sargaal booliska oo ka shaqeeya magaalada Kismaayo sida la aligeed labada sarkaal ee dhinacyada ka muuqdo waxa la siiyay amarro lagu soo qabanaya gabdho Soomaaliyeed oo ka hadlaya tacadiga iyo dhibaatada lagu hayo ganacsigooda kaasoo u afduuban dad gaar ah Cabdi Madoobe wuxuu qaatay amarkii qaldanaa isagoo oo waliba amarka markuu uu qaatay wuxuu sii raacsaday amarro sharci darro ah oo isaga jeebkiisa ka yimid sida la aligeedna u geystay gabdho Soomaaliyeed gacan qaad iyo jirdil sharciga xeerka ciqaabta meel ay kaga taala ma jirto qofka maxbuuska ama eedeysanaha lagu ma xad gudbi kara sharaftiisa lagu ma xad gudbi kara jirkiisa waa la soo qaban karaa cabsi waa la geyn karaa maxkamadda waa la horgeyn karaa laakiin ku tagrifal awoodeed oo jirdil gacan qaad oo gabdho Soomaaliyeed loo geysanaya ayuu isagu xagga jeebkiisa kaga darsaday isagoo gabdhahaas dhaawac lixaad loo geystay qaarkood oo goobihii ganacsiga ay imaan jireen ka xarooday ninka halkan ka muuqdana waxa la yiraahdaa Dhuxlow waa taliyihii hore ee airportka magaalada Kismaayo wuxuu diiday in amar sharci darro ah lagu soo qabto gabdho Soomaaliyeed oo wax huba aan sidan wax dhibaatana aan geysanin isla markaana isaga ayaa xabsiga loo taxaabay wuxuu xabsiga ku xidhnaa 48 saacadood oo u xidhnaa sifo sharci darro ah oo loo haystay inuu amar diida sameeyay sida la aligeed markii la ogaaday inay xaaladdu sii xumaan rabtana la sii daayay isaga oo markii gabdhaha la soo xiriyay ka horeeyay gabdhaha inta aan la soo xirin kana dambeeyay siideynta gabdhaha markii la sii deynay oo 48 saacadood xabsi ugu jiray sida la aligeed waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatadii gabdhaha loo xidhay arrinta oo sii badanaysa waxa jirta video aan soo dhigay oo ka hadlaysa Leila Buraale gabadha yiraahdo Kismaayo ku nool dad Kismaayo ka ganacsada gabadhaas waxa qaba sarkaal ah taliyihii hore ee madaxtooyada Jubbaland Korneyl Cali Geedan oo ah sarkaal in badan ka soo shaqeeyay amniga magaalada Kismaayo min xuduud ilaa iyo magaalada Kismaayo intii laga yimid sida la aligeed waxa jirta taadiyada iyo dhibaatada iyo ganacsiga on xor loo ahayn oo maalmahan ku soo qabanaya magaalada Kismaayo ganacsiga gabdhaha qaadka keenay ee magaalada Kismaayo wuxuu u afduuban yahay agaasimaha bangiga ee magaalada Kismaayo agaasimaha bangiga oo isticmaalay